aad u wahsantahay runtii waxaan runtii aaminsanahay in barnaamijkan uu noqon doono barnaamij dhaxalgal ah waliba da yartay dadka Soomaalida doonay wadankooda inay wax badan ka ogaadaan warbaahinteeda Hurfadh Media oo warbaahin wacyi gelin iyo isugu jirta warbaahin wararka sirdoonka warbixinaha keenta cabdi maanta waxaan rabaa inaan adiguna shacabka uga faa'iideysan anaguna kaga faa'iideysano waxaan maqalay in maalintii la dhiibay qalbi dhagax habeenkii qalbi dhagax la dhiibay adiga iyo madaxweynaha wada jooga in taliyihii nabad sugidda qaranka Soomaaliya Sanbalosha idin arintaas wixii idinku yiri waxa laga yaabaa saan u maqalayna saxay ma habeenka goob joog baad hay taariikh baan harasa maanta waxa ka haraya waa taariikh ummadda Soomaaliyeedna arrimaha ay ku jaawareertay ayay runtii ay kamid tahay waa maxay waxa aad ku qanacdeen ama warbixinta sirdoon ee ku saabsaneed qalbi dhagax ee uu taliyuhu habeenka la wadaagay horta waxa weeye waa habeen taariikhda Soomaaliya ku yeelan karta nuqdo madow aniga waxaan maqlay maalinnimadii ayaan maqlay nin baa laga keenay Galkacyo area dhulka oo la keenay xamar oo loo dhoofin la rabo in loo dhiibo Ethiopia ninka askari Soomaaliyeed buu ahaa sargaal buu ahaa dagaalkii 77 ragii galay buu ahaa marka aniga iyo Maxamed Cabdi Yuusuf iyo nin Cabdirasaaq Juriil leeyda ayaa u nimid madaxweynaha waxaan niri warkaasaan maqalay ninkaas oo loo dhiiba Ethiopia waxa weeye dambiga ugu weyn ee dawladdeenu galayso waxaan kaaga digaynaa baan waayahay buu waa ka tagay 4 saac oo habeenimo ayuu ii yeeray madaxweyne yaani kolkay tahay 10 fiidkii ayuu madaxweynuhu ii yeeray kolkuu ii yeeray inuu tagay telefoon buu diray wuxuu yiri Cabdi Xaashi yaa ila jooga noo kaale uu yimid wuxuu yiri u sheeg wixii aad ii sheegaysay wuxuu yiri ninkaas wuxuu leeyahay anigu waxaan ahaa yaani madaxda sare ee jabadii ONLF dadka qalbi dhagaxay buu leeyahay buu marka wuxuu yiri dadka badankiisii waa galeen anna heshiis baan la galay Ethiopia oo waxaan rabaa inaan anigu ilaahdo aan iskeeyo dawladda Soomaaliya cover baan ka rabaa inay noqoto oo ay xarayso oo igeyso waxaan iri ma isaga yiri Sanbalosha weydiis Sanbalosha weydiinaya su'aasha suuye kolkaas yiri kolkaas uu ii soo saaray baasaboorkiisi waa kan fiisihiisi baa ugu yaala yaani waxa weeye annagu haduuna igeeyo oran ma geynayno haduu igeeyo yiraahdo isagoo codsigiisa arinta ku adkaysta aniga hal bay dhaaftay habeenka ninka ii keeninaan idhaaho keen bay seegtay intaas ay seegtay habeenka marka hadii waxa aroortiina wala dhoofiyay intaasaan anu kahay dib ma isku aragteen Sanbalosha maya martaba kolonda maya weligay yaalay dib uma arag maalinta ku gudumaysay way aad iyo aad u baasatay gudoomiye dad badan marka madaxweynaha halka wada joogteen uu ninka society ku waramayay madaxweynuhu marka waa maxay wuxuu doonay inuu cadeeyo waxa laamaha amnigu u sheegeen ninkaas ku saabsan inuu maartay madaxda madaxda sidaasaan u qaatay horta kolku ii sheegay lees ninkanina uu ku cadcadaa arinta uu sheegay warkiisa uu ku cadcadaa